waxaan la yaabay madaxweynuhu min Borama ilaa Burco qalin jabin buu dhex socday hal arday uu qaaday uu yiri shaqaan siinayaan aanu kama maqlayn idaacadaha mana arag mana maqal dad maqasheen iyo hadaad aragteena de waa ayu anu maanta hadaan hayo oo mas'uuliyaddan hayo hadal weeyaan xisbiga gobolka Waddani markaan hayo waa hadal laakiin madaxweynuhu amaanadii ummaddu hayaa resource-kii dalku hayaa arday qurux badan oo u waxa oo noocana markuu hor yimaado waa inuu wax ballan qaaday ahayd way idin ogtiinoo waxbuu sameeyay oo shaqo qaran loo oran jiray oo halkuu sii marayay in juufo la isku sii haysto oo aakhirkii la isku jiidanayay baad arkayseen wixii shaqo qaran loo oranayay taasina waa nasiib darooyinka dhacay annagu maanta waxaan ballan qaadi karayno oo aan haynaa ma jirto mucaarad baan nahay dibadaan joognaa hadday xukuumaddu joogto waxaan oran lahaa war barshan qofna Allah ka yeelay wax ballan qaada oo wuxuun meelkan kaga dhawaaqa hadday cidi ka joogto weeyaan haddayna cidi ka joogin hadday cidna la canaanan maayo annagu xisbiga mucaarad ahaan waxaan idinku soo kalahnay inaan hambalyeynaa intaa kadib magaalada Borama qurux baa ka jirta nabadgelyada ka jirta maanta waxa idin maqlayseen habeenadan oo idaacadahan aad ka maqlayseen jabhad baa halka u baxday tu kala halka u baxday tu reenuura baxday tu jibriyoonisa ka sii horeysay waxaaba maqlayseen waa nasiib darro weyn oo ku gadaaman xukuumaddan maanta joogta in gobolkii qalinka lagu yaqaanay qori lagu soo sheego waxa gaarsiiyay bay qabaan dadkaasi halka waxa gaarsiiyay ayay qabaan waxa halka gaarsiiyay ayay qabaan ugu dambeyn hadalkayga waxaan ku soo afmeeri lahaa jabadaas way nagu soo noqnoqdeen maalin kasta waa la sheegaa anu shalay toole waxaan tagay xafiiska gudoomiyaha golaha deegaanka tagay Saleebaan Xasan Xadi waxaan doonayaa hal su'aal inaan weydiiyo oo ahayd waan waayay nasiib darro war gudoomiye markaad xilka adigu timaado un maxaa jabhadana naga daba keena jabhadana maxaa keena markaa nasiib wanaagsan de maanta uu joogaayo waan weydiinayaa waayo waqtigii hore ninkii meedhana joogay anagu jabhadna maanaan maqal wax kalena maanaan maqal maantana waxa la leeyahay kuwa maqnaayo hore kuwa kala ka daba baxay su'aashaasaan de waa mas'uulkii nabadgelyada ugu sareeyay degmada Borama inaan weydiino shacab baynu nahay waynu baqaynaa xaq baan u leenahay waxaan leeyahay markaa ummadda reer Borama waxaan leeyahay waar faa'iido ay nagu soo socoto ummadda waxa deeqda ma deeqdo hebel shaqage ummadda waxa deeqda in laga kaabo adeegyada bulshada in laga kaabo caafimaadka in laga kaabo ma garanaysaa caafimaadka wadooyinka biyaha taasa deeqda marka daranyada dadka dibindaabeynaya tashuushka ku furaya social media wararka beenta aan jirin gelinayna waxaan leenahay ilaahayna ka baqo hadalka wanaagsan waa sadaqa dadka Boramana ha hagaajistaan mashruuca weyn oo nolosheena wax ka bedeli doona madaxweynaha markaan soo noqdo madaxweynaha anu waxaan ahaa qofkii team leader-ka ahaa halkan doorashadiisa ugu ololeynayay hogaaminayay baan ahaa halku dhagayaguna wuxuu ahaa dooro madaxweyne go'aan leh ayuu halku dhagayagu ah waxaan qabnaa inaan ku guuleysanay waxaan leenahay walaalaha xisbiyada mucaaridka يا ده وحويان حزبك كلمية سديتن عد باللجا بديه ما دام سديتن عد لجا بديه وكامل حويني سديتن كعد كجا بديه وجوجا مدار داير ريالك هاي حزبك وهني مركا وحلا الربا إن يكونا حتى وحدتك كجديان أي سجان أو مكران أي سايع أي وحكينان أي عيد إسكدايان أنا كل حلقة يجي أمام مددي حل كان هيي مربان كذا دعي waxaan ku soo noqday iyadoo suldaan maqan yahay oo Itoobiya uu joogo dadkiisina uu la joogo halkana xoogaa caruuri ay wax yar sameeyeen oo maalintii ay hawshaasi dhacday waxa ku maqnaa Uganda horta mid baan cadeynayaa wax jabhad la yiraahdo oo gobolka ka jirta ma jirto xaqiiq markaynu isku sheegno laakiin wax waa la kala taban karaa tabashada uunbaa laga yaabaa sida loo approach gareeyay in lagu kala duwanaado waa la kala taban karaa beelaha dhexdooda wax kala taban karaa anigayga Mayirka wax laga taban karaa oo intaasi qaar badan iga cabanayaan cabashadu way iska jiraysaa laakiin sida bulshada loo qanciyo bay ku xidhan tahay wax jabhad la yiraahdo ma jiro qaar baa koonay soo ka suldaanka yimi war suldaanka waan u yeedno anaaba u yeeday
oo waxaan doonaynaa inaan idhaa kaale dadkaagii Itoobiya in badan baa joogto dadkaaga aad la joogtay dadkii Borama iyo Soomaaliland joogay kaale soo arag isaguna wuxuu yiri weli baylaha badan baa halka ay taale laakiin waan idin iman doonaa marka uu yimaadana soo dhaweyn doonaa insha Allah laakiin hadallada media-ha ee adeejeer si kale loo turjumayo waxa weeyaan maanta horumarkii ugu quruxda badnaa ardayda maanta halka ka qalin jabinaysa waliba qaybta engineering-ka ha ugu badnaadaane waxay la kulmeen jaanis wanaagsan oo ay kaga nasiib badan yihiin ardaydii hore qalin jabin jirtay runtii horta mid waa idin ballan qaadaya ardayga ugu sarreeya qaybta engineering-ka dawladda hoose aan u qaadanayna haduu la yiraahdo